fadhiga koob iyo afartanaad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Somaliland oo shir gudoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa lagu lafaguray ahmiyadda nabadgelyada waxaana kulanka diiradda lagu saaray adkeynta amniga waxaanu goluhu ku dheeraaday ahmiyadda weyn ee nabadgelyadu u leedahay dalka iyo dadka iyagoo hoosta ka xariiqay golaha wasiirada ee jamhuuriyadda Somaliland in cid kasta oo liddi ku amniga laga qaado tallaabo sharciga waafaqsan oo aan loo dul qaadan karin cid kasta oo ku hawlan nabadgelyo darro iyo horinta colaadaha soo noqnoqda waxa kale oo golaha wasiiradu warbixin ka dhageysteen gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Somaliland mudane Farxaan Aadan Haybe oo sharaxaad ka siiyay golaha wasiirada hawlaha horumarineed ee hay'adda shaqaalaha dawladdu ay ku hawlan tahay isagoo tilmaamay inay dib u habeyn iyo tayeyn ku sameynayaan waaxaha maamulka iyo maaliyadda iyo cududda shaqaalaha si kor loogu qaado tababarada iyo xirfadaha shaqaalaha dawladda isla markaana loo hirgeliyo hanaanka maamul wanaag daahfurnaanta iyo maamul daadejinta gobolada iyo degmooyinka dalka ee shaqaalaha dawladda ugu dambeyn golaha wasiiradu waxa uu xusay muhiimadda xeerka hawlgabka iyo xaqsiintu uu leeyahay ciidamada qalabka sida si ay iskula jaan qaadaan horumarinta shaqaalaha dawladda iyo ciidamadu xeerkaas oo hor yaalla golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Somaliland sidoo kalena goluhu waxa uu dhiirigeliyay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda jamhuuriyadda Somaliland oo ay ku dhiirigeliyeen in shaqaalaha